Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar culus oo ciidamada macaawisleyda ee ku sugan gobolka Galgaduud ay ku qaadeen deegaano ay ku sugnaayeen Al-Shabaab kuwa oo lagu gaarsiiyay jab xooggan sida wararka halkaas aanu ku helayno ay sheegayaan. Ciidamada deegaanka ayaa beegsaday saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen inta u dhaxaysa deegaanada Budbud iyo Ceel Cali Xasan waxaana xigay dagaal toos ah oo dhex maray labada dhinac kaas oo qaatay saacado badan. Saraakiil ka tirsan ciidanka macaawisleyda ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka saareen deegaanka Ceel Jawle oo halka weerarka ay ku qaadeen isla markaana khasaare xooggan ay gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab sida warkoodu ay ku sheegeen. Sidoo kale waxay saraakiishu sheegeen inay soo bandhigi doonaan maleeshiyaadkii halkaasi lagu dilay ee ku sugnaa iyadoo ay xusid mudan tahay in dagaalamayaasha Al-Shabaab dhankooda weli wax war aysan ka soo saarin dagaalkan la sheegay in loogu dilay xubno badan oo maleeshiyaad oo daacad u ahaa kooxda. Xaaladda ayaa haatan mid aad u kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa aagga deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya oo dagaalkaasi ka dhacay. Dagaalkan waxaa ka horreeyay mid kale oo ka dhacay dhinaca degmada Ceeldheer ee bariga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya oo isna khasaare xooggan lagu gaarsiiyay dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii dagaal culus ay la galeen ciidamada dowladda iyo kuwa kale ee deegaanka ee halkaasi ku sugnaa. Maalmihii ugu dambeeyay guluf dagaal oo ka dhana waxa loogu yeero argagixisada ayaa ka socday gobolada dhexe ee dalka gaar ahaan gobolada Mudug iyo Galgaduud oo la isku yiraahdo maamulka Galmudug. Ceeldheer khasaare xooggan ayaa kooxda lagu gaarsiiyay sidoo kale dagaalkan kaliya macaawisleyda ay ku ekeeyeen ciidamada Al-Shabaab waxaa la sheegay in khasaare xooggan lagu gaarsiiyay dagaalkii Ceeldheer 120 xubnood oo shabaab ah oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa laga soo wariyay iyada oo barxadda weyn ee magaalada ama aargada magaalada la soo dhoobay meedad Al-Shabaab oo ku duuban ama laga buuxiyay baco iyo shareecmo iyada oo halkaasi wali shaqo ay ku kor ciyaareen dadka deegaanka. Dagaalyahanada shabaab dhankooda muddooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo weerar aroor hore ah ay ku galaan fariisimaha ciidamada dowladdu ay halkaas ku leeyihiin ayay qaadayeen hase ahaatee waxaad moodaa muddooyinkii ugu dambeeyay in dagaaladii dhacay oo dhan looga gacan sarreeyay. Xoog hubeysan ee Al-Shabaab ilaa ay hadda kama hadleen ciidamada deegaanka ee weeraray Budbud isla markaana khasaare xooggan gaarsiiyay wax waran laguma soo qorin baraha taageera kooxda ee iyagu ay ku sheegtaan guulaha ay ka gaareen ciidamada dowladda iyo kuwa kale ee la howlgala ee ADMIS. Si kastaba ha ahaatee wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa la rajeynayaa inuu goor ku dhawaaqo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka oo toddobaadyo ka hortagay magaalo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe laguna magacaabo Wargaadhi. Hadda waxaa la rajeynayaa in gobolada dhexe guud ahaanba laga saaro kooxda Al-Shabaab iyadoo oo deegaano ka tirsan maamulada Hirshabelle iyo Galmudug kooxda wali ay ku xooggan tahay. Waxay warara ee dagaalkan macaawisleyda shabaab ku qaadeen ka soo kordho iyo cadeymaha ay soo bandhigaan halkan ay kugu soo gudbin doonaa. Daawada muuqaalka like saar sina share galay aad iyo aad u mahadsantahay. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar culus oo ciidamada macaawisleyda ee ku sugan gobolka Galgaduud ay ku qaadeen deegaano ay ku sugnaayeen Al-Shabaab kuwa oo lagu gaarsiiyay jab xooggan sida wararka halkaas aanu ku helayno ay sheegayaan. Ciidamada deegaanka ayaa beegsaday saldhig Al-Shabaab ay ku lahaayeen inta u dhaxaysa deegaanada Budbud iyo Ceel Cali Xasan waxaana xigay dagaal toos ah oo dhex maray labada dhinac kaas oo qaatay saacado badan. Saraakiil ka tirsan ciidanka macaawisleyda ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka saareen deegaanka Ceel Jawle oo halka weerarka ay ku qaadeen isla markaana khasaare xooggan ay gaarsiiyeen kooxda Al-Shabaab sida warkoodu ay ku sheegeen. Sidoo kale waxay saraakiishu sheegeen inay soo bandhigi doonaan maleeshiyaadkii halkaasi lagu dilay ee ku sugnaa iyadoo ay xusid mudan tahay in dagaalamayaasha Al-Shabaab dhankooda weli wax war aysan ka soo saarin dagaalkan la sheegay in loogu dilay xubno badan oo maleeshiyaad oo daacad u ahaa kooxda. Xaaladda ayaa haatan mid aad u kacsan waxaana dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda laga dareemayaa aagga deegaanka Budbud ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya oo dagaalkaasi ka dhacay. Dagaalkan waxaa ka horreeyay mid kale oo ka dhacay dhinaca degmada Ceeldheer ee bariga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya oo isna khasaare xooggan lagu gaarsiiyay dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii dagaal culus ay la galeen ciidamada dowladda iyo kuwa kale ee deegaanka ee halkaasi ku sugnaa. Maalmihii ugu dambeeyay guluf dagaal oo ka dhana waxa loogu yeero argagixisada ayaa ka socday gobolada dhexe ee dalka gaar ahaan gobolada Mudug iyo Galgaduud oo la isku yiraahdo maamulka Galmudug. Ceeldheer khasaare xooggan ayaa kooxda lagu gaarsiiyay sidoo kale dagaalkan kaliya macaawisleyda ay ku ekeeyeen ciidamada Al-Shabaab waxaa la sheegay in khasaare xooggan lagu gaarsiiyay dagaalkii Ceeldheer 120 xubnood oo shabaab ah oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa laga soo wariyay iyada oo barxadda weyn ee magaalada ama aargada magaalada la soo dhoobay meedad Al-Shabaab oo ku duuban ama laga buuxiyay baco iyo shareecmo iyada oo halkaasi wali shaqo ay ku kor ciyaareen dadka deegaanka. Dagaalyahanada shabaab dhankooda muddooyinkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo weerar aroor hore ah ay ku galaan fariisimaha ciidamada dowladdu ay halkaas ku leeyihiin ayay qaadayeen hase ahaatee waxaad moodaa muddooyinkii ugu dambeeyay in dagaaladii dhacay oo dhan looga gacan sarreeyay. Xoog hubeysan ee Al-Shabaab ilaa ay hadda kama hadleen ciidamada deegaanka ee weeraray Budbud isla markaana khasaare xooggan gaarsiiyay
wax waran laguma soo qorin baraha taageera kooxda ee iyagu ay ku sheegtaan guulaha ay ka gaareen ciidamada dowladda iyo kuwa kale ee la howlgalay ee ADMIS. Si kastaba ha ahaatee, wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa la rajeynayaa inuu goordhow ku dhawaaqo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ka oo toddobaadyo ka hortagay magaalo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe laguna magacaabo Wargaadhi. Hadda waxaa la rajeynayaa in gobolada dhexe guud ahaanba laga saaro kooxda Al-Shabaab, iyada oo deegaano ka tirsan maamulada Hirshabelle iyo Galmudug kooxdu weli ay ku xoogan tahay. Wixii warara ee dagaalkan macaawisleyda shabaab ku qaadeen ka soo kordho iyo cadeymaha ay soo bandhigaan halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa. daawada muuqaalka like saar, sina share garee, aad iyo aad u mahadsantahay.